ugu dambeyntii waxaa la soo fasaxay dhammaan xisaabaadkii wada sugaynay iyo dadaalkii ay u soo dadaalaynay muddooyinkii la soo dhaafay inagoo waxa weeyaan aan sugaynay in wax fara badan aynu helno runtii barnaamijkan Hamster Combat wuxuu noqday barnaamij challenge ah oo dad fara badan oo caalamka ahi ay ka dhigteen challenge waxaad arkaysaa muuqaalada qaar markaad daawanaysid iyadoo nin cunto cunayo haddana calculatorka isticmaalaya isagoo xisaabinaya xisaabaadku heli doono gabadh waxa weeyaan iyadoo gurigeeda iska masaxanayso caruurteedii waxa weeyaan u shaqaynaysa haddana calculatorka isticmaalayso ku mashquulsan runtii challenge aad u fara badan buu caalamka dhaliyay ilaa xalayna aad baa loo hadalhayay barnaamijka Hamster Combat waxaana rajeynayay bal wuxuu la soo bixi doono doodo fara badanna caalamku ka dhaliyay dad taageersan iyo kuwa ka soo jeedo leh barnaamijkani waxay qiyaamayaan dadka waxa weeyaan oo ay waqti ka luminayaan marka ugu dambeyntii xalay waxay soo fasaxeen dhammaan tokenskii aan shaqaysanay iyo xisaabaadkii iyadoo waxa weeyaan ay ku soo dhacday qaybta airdrop ee ah Hamster Combat mini app-ka markaad gashid qaybta airdrop haddaad gashid waxaad arki kartaa dhammaan wixii ku soo baxay aad waxaan uga xumahay qof kastoo cheating looga soo qoray ama laga joojiyey sabab la xiriira in waxyaabo khaldan ay sameeyeen balse laakiin asxaabtii waxa weeyaan lagu yiri calculation baa lidin wada shalay iyagu dhammaantood tokenskooda inay helaan ayaan rajaynayaa haddaba barnaamijkan intaan ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa bal qiimaha la rajaynayo inuu ku soo baxo bear one token iyo sidoo kale bal calculation inaan sameyno asxaab ka mid ah asxaabtii la soo wadaagtay wixii u soo baxay anoo ka soo qaadan doonaa hal ka mid ah YouTube hal ka mid ah TikTok iyo hal ka mid ah Facebook ah haddaba asxaabta qaaliga haddaad ku cusub tahay boggaygan waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo birtid oo follow tirhid 200,000 wax yar baa inooga harsan sidoo kale haddaad ku cusub tahay dhanka YouTube-na subscribe dhow ha ilaawin inaad subscribe garaysid muuqaalka ugu dambeyntii waxaa la soo fasaxay dhammaan tokenskii waxa weeyaan la wada sugayey ama xisaabaadkii ay wada sugaynay ee u soo jeednay habeenada badan dadka qaaray muddo dheer ayay ku jireen dadka qaarna muddooyinkii ama isbuuciyadii ugu dambeeyey ayay ku soo biireen marka aad baa loo kala duwanaa runtii Hamster Combatna waxay sameeyeen allocation ay ugu talagaleen in laga qiimo qaato ama xisaabaadka sidii ku bixinayeen haddii noqoto profit per hour calaa qof inta lagu siinayo asxaabta inta lagu siinayo sidoo kale waxay soo dhigeen adigu dhammaan barnaamijkaas Hamster Combat sidii ay ugu talagaleen oo dhan allocationkiisa waxay soo dhigeen page-kooda ugu dambeyntiina qof kasta qaybta airdrop ee mini app-ka Hamster Combat ayuu ka helayaa tokenkiisii haddaba waxaan isku dayi doonaa bal in percentage-ka la rajeynayo inuu ku soo baxo iyo in calculation sameeyo bal 3 qof iyo xitaa aniga tayda bal inaan isku dhufto oo ku talagalo bal sida ay wax u noqon doonaan qiimaha ku soo bixi doono bear one token runtii hadalhayn fara badan buu dhaliyay barnaamijyo badan baa laga diyaariyey runtii yacni propaganda badan oo way jirtaa oo dad waxa weeyaan dadka waalaya iyo sidoo kale dad waxa weeyaan dadka ku oranaya bear one token $1 baa lagu bixinaya bear $1 haddii lagu bixiyo runtii taajirin bay noqonaa dhammaanteen lacaga fiican bay noo soo dhacay laakiin way adag tahay marka la qiimeeyo tokensku intay ku soo baxaan sababtoo ah dee $1 calaa token hadduu ku soo baxo iyaga ayaa kacaya runtiina dee faa'iidoogu ma jirto mana hayaan dhaqaale intaa la eg sidaan rajeynayo anoo ka tusaale qaadanaya airdropskii hore ee waxa weeyaan soo baxay doodaha qaar waxay sheegayaan barnaamijkan inay qiimo aad u liidata ay ku soo bixi doono kaas oo runtii ka dhigi doona in dad fara badani waxii ay xisaabsanayaan ku waayaan balse laakiin waxaad ogaataa saaxiib haddii dadkani Hamster Combat ay hagaajin waayaan dadkii bumbuunintan faraha badan la u sameeyey runtii iyaga ayaa khasaaro ku jira sababta airdropkan ay u bixinayaan wax kale maahan waa si ay u helaan dad fara badan oo maal gashada marka barnaamijkani la daafuro waa sababtaasun marka iyagoo xisaabta imika bixinayaan waxa ka badan xisaabta ay ku xisaabtamayaan barnaamijkan marka uu crypto si toos ah loogu laanji karayo marka waa sababtaas marka sababtay tokenskan iyo waxaan oo dhan u sameynayaan waayo haddii imika ay wax xumeeyaan ama dadkan imika ka faa'iidaystay haddii ay hagaajin waayaan iyagu bay ka go'an tahay oo waxa la waayi doonaa hadhow cid maal gashata oo wuxuu noqon doonaa coin aad waxa weeyaan loo nacbaysto ama loo takooro sabab la xiriirina dad khiyaamay marka asxaabta qaaliga bal waxaan isku dayi doonaa bal inaan asxaabtii ila soo wadaagtay qiimayaasha ay heleen bal inaan isku dhufto average ahaan la rajeynayo inuu ku soo baxo waa 0.10 ilaa 0.3 waxaan laga yaabaa inuu ka yaraado waxaan laga yaabaa inuu ka bato laakiinse waa average-ka marka la qiimeeyo airdropskii hore ee waxa weeyaan soo baxay sidoo kale marka la qiimeeyo kan imika waxa weeyaan taagan ee waxa weeyaan Hamster Combat haddaba aan isku dayo bal inaan sameeyo
Facebook page-kayga ayaa waxaan soo dhigay storygii ugu dambeeyey aan runtii kaga hadlayay xisaabaad aan isku dhifsaday nin magaciisa loo yaqaano Cabdinuur Cabdicasiis ayaa wuxuu yidhi waxaad xisaabsaa 3,000 waxa ii dhali doonto 3,000 haddaan isku dayo bal ninka odaga inaan u xisaabino 3,000 waxaan ku dhufan doonaa 0.10 marka koobaad 0.10 haddii ku dhufano ninkaas $300 buu helayaa haddii aynu ku dhufano 3,000 0.3 na wuxuu heli doonaa 900 si macaan buu ninkaasi waxa weeyaan dhaqaale fiican oo waxa weeyaan mobile iPhone 13 Pro Max wixii ka sirey waad ku iibsan kartaa lacagtaas okay ambal TikTok nin odayaa wuxuu yidhi balniyow unclaimed waxa ku qoran 286 bal waxaad igu dhufataa waxa weeyaan 0.10 waa $60 macnaha wax yarna way bixinayaan ragga $60 $60 ha yaraysanin laga yaabaa barnaamijka marka la daafuro haddii aad isku daydid traderkooda inaad gashid in $60 cirka aado marka ha dhayalsanin marnaba okay aan isku dayo markaa 286 haddana inaan ku dhufto 0.3 85 buu helayaa $80 ninkaas si macaan buu qadeynayaa casho qado si macaan buu habeenkaas u seexanayaa okay sidoo kale waxaa soo dhigay YouTube-ka qaybta community-ga waxaa yidhi xisaabaadkaas ayaan isku dhufsaday bal adiga maxaa kuu soo baxay waxaan isku dayi doonaa nin odaya oo magaciisa loo yaqaano Nimcaan Siyaad oo u soo baxay 1629 waxaad ku dhuftaa 0.10 oo 162 1629 lagu dhuftay 0.3 488 runtii ninkaas mushahar fiican waa heshay Nimcaan aad baa ku salaamaya insha Allah intaas waa sample ahaan baan ugu talagalay yani markaad waxaaga adigu xisaabsanaysid qaabkaad isku dhufsanaysid okay aniga kaygaan u imaado anigu saaxiibayaal wax shaqo aan qabtay ma jirin kaliya waxa weeyaan asxaabta ayaa aniga ila dadaashay maadaama aan linkiga la soo wadaagi jiray marka waxa ciida ka badnayd waxa weeyaan hamster combat-kiga qaybta revealerka ayaa waxaan sameeyay xisaab waaliya marka 7,000 baa aniga samaysay 7,000 isku dayay bal inaan sameeyo haddaba intaan aan u gudbin qaybtan aan idin sharaxo listing date-ka ama xisaabta waqtiga soo dhacaysa waa September 6 qaybtani waa tokenski iyo withdrawgii okay qaybta tokenska aan imaadno tokenska si guud ahaan waxaan helay maxay waxa weeyaan total ahaan waxaan helay 7,449 dhibic dhararag oo xisaabaad kale claimid waxa ma jiraan 0 weeyaan next unlocked waxa weeyaan wax xisaab ay dhaheen hadhow ayaa la soo saari doonaa oo macnaha log ahaan bay ku xidheen waa 12% bay dhaheen weeyaan haddaba unclaimedku waa xisaabta saxda ee imika inoo soo dhacaysa September 6 xisaabta saxda soo dhici doonta waa 3,959 waa soo dhici doonta okay shaqooyinkan qabtay wax shaqo aan qabtay wax tax aan qabtay ma jirin laakiin revealerkayga asxaab far badan ayaa qaatay oo almost 5,800 oo qof ayaa linkayga soo raacay taas ayaana keentay in asxaabtii badato wax achievements aan sameeyay ma jirin wax kiisoo sameeyay ma jirin laakiin se taas ayaa keentay in asxaab far badan waa sababtan ku lahaan linkigiina waxaad la wadaagtaan dad far badan oo qaata adiguna qofka aad ka faa'iidid ka qaado adigana dadka u faa'iideysa ha qaataan waa sababtan idin lahaa so xisaabta marka 7,000 baan isku dhufsan doonaa okay withdraw baad oran doontaa kadib maaragtaa markaad xaggan wax kaaga soo bixi doontaa Binance-kaagii iyo sidoo kale iyo marka exchange-ka ama wallet-ka aad ku xidhatay calaamadda tagtaas aad arkaysaan ayaa lagu garanayaa okay asxaabta qaar buu waxay lahaayeen wax wallet wax exchange kuma xiran raali ahaada waxba kuma leedin hamster combat sababtoo ah aniga waan idin sheegay hamster combat way idin sheegeen qof kastoo barnaamijkan ka hadlayana way idin sheegeen inaad ku xirataan hamster combat-kiina exchange wallet lacagteedu ku soo dhacdo okay markaad ku dhuftid Binance waxaad hagan arki doontaa lacagta qiimaha imika soo dhici doonta 6 bisha qiimaha soo dhici doonta
ayaad xaggan ku arkaysaa oo runtii iyadoo ah maxay hamster combat token. Okay, tokenskigaan tago. Okay, 7 copy baan oranayaa. Waxaan tegi doonaa maxay calculatorkayga. waxaan ku dhufan doonaa marka koobaad maxay 0.10. haddii 0.10 ku dhufto waa $2,714 weeyaan. macnaha waa qiimahan heli doonaa haddii waxa weeyaan maxay 0.10 ku soo baxo. hadduu ka yaraadana uu ka yaraan doonaa. haddii aan ku dhufto 0.3 na 0.3 haddaan ku dhuftana haddaan ku dhufto 0.3 8,444 marka lacagtan anigu sadaqan ka bixinaya haddii 0.3 loogu dhufto si macaan bay uga taajirnaa markaas. laakiin saaxiibayaal maaha tani tii ugu dambeysay, gamekan kii ugu dambeeyey maaha, bahalo badan baa soo socda. marka insha allah waxaan rajeynaynaa in xisaab fiican inoogu dhuftaan oo runtii aan rajeynayna dhammaanteenba in aan ka wada faa'iidno dhammaantiin meel kastoo joogtaan. dhammaan asxaabta qaaliga bal adiguna haddii aad mawduucan dhamaystay isku day dadka asxaabta ayaan soo weydiinaya inaad u jawaabtid, sidoo kale xisaabta iskugu dhufatid si ay u fahmaan xisaabta u soo dhacaysa intay tahay. bitcoin markii ay bilaamaysay sidan oo kale ayaa loo dhayirsanayay, lasma lahayn sidan oo dhan ayay noqon doontaa. marka dadka berigii ka xaraabaysanayay runtii iminka iska qowmeynaya inay ka faa'iidaysan waayeen. ninka maanta xitaa 286ka ninka yara helay waxa weeyaan haddaan ugu dhufto 0.3 ID5kaas hayaraysanay, sababtoo ah ID5ka iminka intan waxaa laga yaabaa hadduu iskaga daayo oo isku dayo bal intaa trailkii inta uu kacayo waxa weeyaan hamster combatkan in qiimo fiican uu ku heli doono. marka ha dhayarsanin. marka insha allahu tacaala wixii abdheeda aanu xaggan ku wadaagi doonaa insha allah si waxa weeyaan asxaabtu ay u noqdaan kuwa mar walba abdheedka waxa weeyaan la socda. aad baa mahadsantihiin. insha allahu tacaala ha idin rajeynayaa nabadgelyo dhammaantiinba.